kadib markii madaxweynaha Mareykanku uu sheegay in si kumeel gaar ah uu joojinayo lacagta uu Mareykanku ku taageero hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO siyaabo kala duwan ayaa looga falceliyay dhinaca kale waxa la isweydiinayaa raadka ay lacagtaasi la hakiyay ku yeelan karto hawlihii ay hay'addu waday. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Faarax Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia arrimaha Mareykankana aqoon oo leh. Faarax ayaa marka hore ka hadlaya dalalka ugu badan ee ururkan kaalmeeya. horta wadanka ugu sareeya ee lacagta ugu badan bixiya hay'adda caafimaadka adduunka WHO waa Mareykanka. in ka badan 400 oo milyan ayuu bixiyaa. waxa wadanka ugu soo dhow waxaan dhihi karnaa waxa weeye waa UK iyo Ingiriiska iyo waqooyiga Ireland marka la isku daro ilaa in ka badan 160 milyan. waxa ku xiga Jarmalka ilaa iyo adigu 90 milyan meelahaas bixiya. Japan baa ku sii xiga, Norway sidaas isugu sii xigaan wadamada lacagaha badan bixiya. waan gartay madaxweynaha Mareykanku muxuu ka cadhooday oo keenay inuu go'aan ka qaato? horta wuxuu ka cadhooday markii ugu horeysay China markii China xanuunka laga helay. WHO waxaa loo xilsaaray caafimaadka adduunka inay la socdaan haddii la arko xanuun soo baxa oo sida kan oo kale caabuqan oo kale ah in ay markiiba dad u diraan eegaan oo ay ku dhawaaqaan si adduunyada kale intiisa kale looga qabto sidii Ebola Africa oo kale. Mareykanku wuxuu ku eedeynayaa madaxweynaha Mareykanku in WHO ay markiiba ku dhawaaqaan oo ay China inay yiraahdaan waanu baaraynaa xanuunka kan oo ay ku adkaystaan. wuxuu leeyahay waxay China ka indhalaafteen oo ma yeelin xilkoodii saarnaa inay China la hadlaan oo baaraan. waayo Chinesku way qarinayeen xanuunka kan inta uu leeyahay iyagoo baa isku koobay waxyaalaha Chineska lagu eedeynayay ka mid tahay. marka madaxweynaha Mareykanku wuxuu leeyahay WHO China ka baqayeen inay u sheegaan runta amaba ay xanuunka kan dhibaatada uu keeni karo hore ugu dhawaaqaan. waan gartay ma jiraan dalal ku raacsan Mareykanka eedan uu madaxweyne Trump u jeediyay hay'adda WHO? horta ilaa hadda waxaa si kulul uga hadlay waa wadankan Japan. wadamadan inkastoo la yiri maaragtay inay marka hore wadamo qaar ka mid ah xataa Yurub ay ka hadleen oo inay hore ugu dhawaaqaan bay ahayd. laakiin wax si cad uga hadlay waxaa jira ra'iisul wasaaraha Japan. laakiin wadamada badankoodu runtii waxay ka hadleen inay WHO sidii la rabay aanay xilkooda u gudan. laakiin runtii cambaareynta intaa lagama in lacag laga gooyo may gaarin. waan gartay ma jiraan dad madaxweynaha ku diidan talaabadan uu qaaday oo leh dhibaato badan bay la iman karaysaa? horta runtii aad waxa uga hadlay madaxweynihii Mareykanka ee hore Jimmy Carter oo runtii ahaa nin maaragtay aad iyo aad waxyaabaha bini'aadanimada intuu madaxweynenimadii ka degay aad iyo aad uga shaqeeyey. wuxuuna yidhi maaragtay arrinta tanu macquul maaha. waxaa kaloo oo isaguna aad uga hadlay Bill Gates. runtii haddaynu ku yar noqono lacagta Mareykanku bixiyo qofka ku xiga amaba wadan iyo cid kastaba haatee ku xiga waxa weeyaan waa Bill Gates ayaa ku xiga oo ilaa iyo ku dhow lacag ku dhow 400 milyan bixiya daanay ka badnayn. marka runtii isaguna arrintaa wuu ka hadlay wuxuuna yidhi maaragtay maaha waqtigii sax ahaa oo iyadoo dhibaatadan xanuunkan coronavirus uu jiro in la joojiyo. European Unionku way ka hadleen iyaguna runaantii badankooda inay isku raaceen oo ay tahay khalad. waxaa kaloo ka hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo yidhi maaragtay waqtigan maaha waqtigii lacag la goyn lahaa iyadoo laga tacaalayo dhibaatada taagan ee xanuunkan keenay. waan gartay lacagta la gooyay ee Mareykanku yidhi waan hakinayaa dhibaato intee leeg bay u keeni karaysaa hawlihii hay'addu ay haysay? horta runtii
walwalka weyne jira waxa weeye lacagtan uu hakiyey waxa ka daran Maraykanku ama siyaasadiisa dadka kale ku raaci kara ayay ka baqayaan ama hay'adaha wax bixiya hay'adaha caalamka ee adduunka WHO caawiya qaar badan oo waxa jira Maraykanka aad ugu xiran ama siyaasadooda waxa kamid ah World Bank oo bixiya in ka badan 140 ka badan waxa jira maaragtay Rotary International ilaa iyo 7 milyan in la bixiya iyo hay'ado badan oo madax banaan oo dadka kan taajiriinta iyo lacagta siiyaan oo Maraykanka marka runtii ma kaliya inay lacagta tan u joojiyo dhaawacayso WHO-ga waxa kaloo dhaawac ku iman karaa dadkii lacagaha bixinay inkastoo sida Bill Gates oo kale dadka lacagaha looga bixiya aad u tirada badan aan iyagu ku raaci doonin waan gartay China arrintan ka hadlay baa la yidhi oo dhaleeceeyay tallaabada Maraykanka horta China runtii aad iska macnaheedu way dhaleeceeyeen xataa meelaha qaarkood waxa lagu soo qorayay inay leeyihiin waxaanu bixin doonaa wixii China Maraykanku bixinayay runtii mana bixin karaan awoodna uma laha laakiin run ahaantii markii la eego madaxweynaha Maraykanku garab buu u leeyahay xanuunka kan in badan bay Chinese-ku iyagoo la dagaalamaya qarinayeen markii ay dadkoodii dhoofeen oo waliba Yurub aad u galeen Maraykanka maaragtay intii yareeyay la ogaaday markay soo galeen gobolka Sierra la yiraahdo lagu ogaaday maahan dadkan badankoodu waxay galeen Chinese-ka ah Yurub ama dadka xanuunka qaaday marka run ahaantii Chinese-ku madaxan bay luka ka ceshanayaan ma runtii arrintan waa khalad weyn oo ay sameeyeen iyagoo daadan dimuqraasi ka jirin oo ah inay waxooda hoos u qarsanayeen iyo dadka qaarkood waxay ku eedeynayaan inay rabeen adduunyada kale inay dhibaato gaadho gaar ahaan xagga dhaqaalaha